marka ugu horeysa waxaan taageersanahay adigoo ku hadlaya afka madaxdhaqameedka gobolka Togdheer anigoo magacaygu yahay Suldaan Nuur Ciidin Maxamuud Riyasul Laawe waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka maanta ay ka qaateen labada garabka bixiyay waxaan ku taageersanahay sida ay maanta go'aanka geesinimada ay uga gaareen go'aankii maanta xusbiga kulliye laba garab oo ahaa madaxweynuhu cadaalad muu samayn markay arkeen cadaalad darrada go'aanka ay ka qaateen baan soo dhaweynaynaa marka labaad waxaan leeyahay madaxweyne waa bidixdaadii iyo bidigtaadii waxaanu kaa codsanaynaa haddaan nahay madaxdhaqameedka gobolka Togdheer inaad soo dhaweyso shirka maanta lagu wado bisha 11 tobankeeda inaad dib u dhigtaa baanu doonaynaa waxa weeye maanta xusbiga haddii uu gacantaada adigoo madaxweyne oo intaasoo sannadood dalka soo xukumayey oo maanta taariikhdaada iyo baabka dahaba ee aad leedahay Somaliland iyo caalamkoo dheeroogaya hadduu gacantaada uu ku burburo waxa weeye waa ku qiimo darro waxaanu leenahay madaxweyne shirka dib u dhig cid yaanu afduunaani hadduu maanta xusbigii kulmiye baabo oo sidaa ku burburo xusbigii uu saas ugu kala tegey dib u dhig madaxweyne aad iyo aad baan u salaamayaa madaxdaan ka soo qayb gashay haweenka labada garabka maanta go'aanka gaadhay aad iyo aad baan u taageersanahay haddaan nahay madaxdhaqameedkii gobolka Togdheer bulshadii gobolka Togdheer haddii aan Somaliland oo dhan waxay taageersan tahay garabka maanta go'aanka gaadhay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh